Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waxaa kusoo dhawaataan baahiyo janaal ugu barateen taariikhda fanaaniinta iyo kuwa fanka xoog soo galay fadlan haddii aad janaalka cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan wax walba cusub oo fanaan walba oo Soomaali ah ku saabsan mahadsanidin daawadayaal waxaa kusoo dhawaataan falanqeyn ku saabsan Bollywood of Soomaaliya waxaa la jecel yahay mar walba in laga hadlo taariikhda oo beenta ah ee fanaaniinta waa dad sharaf leh waa fanaaniin Soomaaliyeed mar walba waxaa la jecel yahay in la caayo oo Bollywood of Soomaaliya laga caayo daawadayaal waa ogtihiin in dadkaas ay fanaaniin Soomaaliyeed ay yihiin Bollywood of Soomaaliya waxay mar walba sheegtaa fanaaniinta ceebtooda daawadayaal inta ku xiran Bollywood of Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Bollywood of Soomaaliya ay garab siiyeen maxaa yeelay Bollywood of Soomaaliya waxaa laga caayaa fanaan walba oo cusub ama fanaaniinta Soomaaliyeed sida Dayaxdan Nolosha Qadarkeena waa dad caan ah waa fanaaniin Soomaaliyeed ma la jeclo in qofka bini'aadamka la caayo laakiin channelkaas waxaa laga caayaa wax walba fanaan ku saabsan fanaaniintana waa dad Soomaali ah waa dadka Soomaalida lagu faanayo waaye Bollywood of Soomaaliya qofka la magaciisa waxaa la lahaa Cadnaan ayaa la lahaa wuxuu jecel yahay mar walba fanaan walba oo Soomaali ka mid ah inuu caayo jecel yahay been isku sheeg ma fiicno hadda ninkan haddii aa iska qabanin ninka daawadayaal inta ku xiran Bollywood of Soomaaliya haddii ninkan garab mar walba siisa hadhow idinka ayuu idin caynaya clip yar ayaa haya oo codkiisa asigoo caynayo taageerayaasha ku xiran Bollywood of Soomaaliya ninkan waa inaad meel iska saartiin ama iska qabatiin mar walba baahiyo janaal waxay idin soo gudbinayaa taariikhda ka dhacday fanaaniinta oo saxda ah taariikhdooda saxda ah iyo halka ay ku nool yihiin iyo waxyaabaha runta ah baahiyo janaal wax walba ayaa laga baahiyaa YouTuberiska kuwa Bollywood of Soomaaliya camal oo hadda oo been baahinaysa been ayay baahinayaan Bollywood of Soomaaliya Bollywood of Soomaaliya waxaa kula tali lahaa inay waxyaabahaas iska daayso fanaan inay caaso u fiicno hortooda fanaan in la caayo ma fiicno maxaa yeelay fanaankan waa fanaan Soomaaliyeed walba fanaan kale haddii uu ahaa xataa caadi ahaadeed oo wadanka ka mid ahaynin oo wadamo shisheeye ah haddii la caayna xataa waxay aadeen laakiin fanaan oo adiga wadankaaga ku halgamay oo wadanka u dhashtay maxaa laga caynaa Bollywood of Soomaaliya dadka ku xiran waxaa u sheegi lahaa inay ka goostaan ama waxa ka faa'iideysan maale dimbilay ka faa'iideysan Bollywood of Soomaaliya dadka ku xiran waxaa leeyahay ninkaas inaa garab aasiinin daawadayaal waxaa idin leeyahay ninkaas clip yar ayaa ka helaa asigoo afagaadeynayo taageerayaashiisa inta ku xiran Bollywood of Soomaaliya waxaa idin sheegayaa in ninkaas ixtiraam idin haynin wax walba oo been u sheega qadar Kenya waa la ninkaas waa fanaan Soomaaliyeed oo caan ah qadar yaanyo leeyahay waa nin daran waa ninka oo Bollywood of Soomaaliya Cadnaan la magaciisa oo ogtiin saa idinku sheegay hore wuxuu degan yahay degmada wuxuu degan yahay Weedow waa meel interiirada isku yimaado Shiineeska jira oo leeyahay beentiis waa nin Shiinees oo joogo ma aha ninkaas waa nin Soomaali joogo wuxuu ku joogaa Soomaaliya meel la leeyahay Weedow waa taqaaniin waa meel caan ah waxay ka mid tahay magaalada Muqdisho meel ka mid ah waaye Weedow ayaa la lahaa interiirada isku yimaado galabtii Jimcayn xataa dadka dhan meel isku imaanaya jira isku soo tuursamaya ninkaas waa jeedin Cadnaan ayaa la lahaa idin sirin Shiineeska ay joogaa intiis waa Shiinees wuxuu joogo malaha weligiis Soomaali ma ka dhaxbeen clip yar oo asxalla hada idin soo waayaysiin laakiin ma jeclin in aan wax ka sheego ama xanto ma jecli laakiin ninkaas waa in isku daya fanaaniinta Soomaaliya inuu caayo fanaaniinta Soomaaliyeed maxaa yeelay wadanka ay u dhashteen inuu caayo ma fiicno ninkaas ka qabta fanaaniinta oo caaynayo ninkaas maxaa yeelay taariikh sax ah ma ka hadlaayo waa taariikh been oo ka hadlaa King CK oo caynaa mar Dirsil Abdi oo ninkaas in meel la saaro waaye daawadayaal waxaan idin leeyahay ninkaas in karbaashi doontaan ama ciqaabi doontaan ninkaas waa nin dheeraad waaye maxaa yeelay waxa isku dayaa hadhow idinka oo idin caana hadda fanaan loo caano hadhow idinka oo idin caana ninkaas qabta waxaa ka faa'iideysan malaan janalkiisa
kusoo xirta janaal baahiye janaal kusoo xirta oo ka faa'iideysan wax walba oo ka dhacay YouTube riski iyo taariikhda dhaxda taariikhda oo dhabta ah oo fanaaniinta ku saabsan iyo kuwa fanka xoog soo galay fadlan ninkaas la leeyahay Cadnaan ama Bollywood of Somali leeyahay wax been loo baahinaa been loo sheego wax been loo sheego wax run aan ku maadlaa wax been loo idin baraa ninkaas waxay idin leeyahay inaa taariikhdiisa dhabta fahanteen wuxuu ku noolyahay degmada Weedo ayuu ku noolyahay waa meel kamid ah Muqdisho meeshaas ayuu ku noolyahay Shiineeska ayaa jira kula Shiinees inta weligiis uma xamar weyn xataa weligiis ma tegin aan malaynaan been idin sheegan dad badan oo khalday oo jeedaan rumino sheegayo asiga oo live inuu soo galo fiican oo hujigiisa la arkaa wuxuu leeyahay aniga habeen marka idin tahay aniga maalin inoo tahay beentis waay dadku wuxuu arkay inuu ka aqal badiyo arkay laakiin idinku waxa idin leeyahay ninkaas meel iska saartaan hadhow idinkoo wax kale ilin iga damcaa beentis waay ma ahan nin oo YouTubers xataa xoog ugu soo galay mid asi ka yar ayaa Bollywood of Somali asaasay wuxuu soo jeedir waxyaabo fiican dadka faa'iido leh oo soo jeedir laakiin hadda asiga la wareego wuxuu soo jeedinaa wax afka aaba qaadaneenba oo dadka bini'aadamka hadday maqlaan xataa macquul ahayn oo ku sheegaa wax dembi leh faa'iideysan wuxuu sheegaayo wax fiican maahan wax been lagu sheegaa kaas waxaa idin leeyahay daawadayaal ina videoan kasoo warceli doontaan ninkaas meel saari doontaan idinka hadda iska celin ama iska qabanin hadhow idinka ayuu idin halay doonaa aniga walaalkiin ayaa ahaan baahiye janaal waa janaalkan wax walba taariikhda dhabta ah iyo kuwa YouTuberska oo xoog ku soo galay ama fanka xoog ku soo galay ayaa jeclahay mar walba inaan ka qabto YouTuberska kuwa xoog ku soo galay daawadayaal waxaa idin leeyahay inaad fahanteen fadlan haddii aad janaalku cusub tihiin subscribe saaraysa igu dhiirigelisiin waa ku mahadsantihiin daawashada videowan fadlan ninkaas waxaa idin leeyahay meel iska saara ama ka qabta fanaaniinta oo caynaayo maxaa yeelay fanaaniinta waa fanaaniin Soomaaliyeed oo mudan in la xishmeeyo oo mudan in oo la soo dhaweeyo ninkaas hadda oo caynayo fanaaniinta Soomaaliyeed haddii loo sheego ama tilaabo ka qaadayaan laakiin hadda ma ogo dadkaas ninkan Bollywood of Somali leeyahay Bollywood magaca sortara Bollywood waxa laga keen meel magac Hindi waay Hindiyada ay isticmaalaan Bollywood Hindiyaasha waa meel filmaanta ay soo daayay waa meel oo filmaanta Hollywood iyo Bollywood iyo meel oo xajiran oo filmaanta lagu jilay meelaas waa Hindi meel kamid ah waa magac janaal weyn waay magacaas waa magac janaal waay asigana wuxuu Bollywood of Somali oo Bollywood of Somali uu fiican yahay laakiin wuxuu ku xun yahay ninkaas wax xun magac uu fiican yahay laakiin asiga xun wuxuu soo jeedinayaa xun magac uu fiican yahay laakiin wuxuu soo jeedinaa macquul ma waan wax afka lagu sheegi karin uu sheegaa been waxay idin leeyahay ninkaas inaa meel iska saari doontaan oo iska qaban doontaan maxaa yeelay fanaaniinta Soomaaliyeed ayuu mar walba ceebaystaan ninkaas kiisigii xataa sharaftiisa xataa meel ayuu u dhacay Dirsila Abdi sidoo kale waxaan leeyahay idinkan inuu sidaas idin galiga doono haddii aad ku sii xirnaatiin channelkiisa maxaa yeelay ninkan waa nin asar madoorsho waxa la waa wax asiga waa wax isbedeleen Madoorsho waxa la waa wax asiga isbedeleen warwaano iga diid intaas oo comment u diid waxa le saaxabo waxaan talo kuma ahan waxaan iska daa intaas oo comment u diid saaka ugu dambeeysa ala hadla saaxabo waxaan iska daa leeyahay anigu waa ku karbaasha baan ku sheegay waa ku karbaasha wuxuu ilaa karbaasho aniga waxa balan inaa karbaasho maxaa yeelay fanaaniinta Soomaaliyeed oo lagu faan oo caayna fanaan muxuu ka qabaayay tiisa moo ka bar fanaan muxuu ka rawaayay asar Madoorsho waxa la waa wax isbedeleen alla waa wax isbedeleen asiga saas waano inta Soomaaliland waa looyaa wuxuu leeyahay aniga waxaan waa ganacsadaa iyo waxaas wax lagu ganacsanaa ma ahan waxa idin leeyahay daawadayaal in aan ninkaas meel saari doontaan videowan ka soo warceli doontaan ama soo jawaabi doontaan commentiga fara badan aan soo dhiibo doontaan maxaa yeelay ninkan haddii iska qaban idinka hadhow idin wax kale idin kula kaca hadaada oo jeed video live ayuu ku jiray gabar taageeriis kamid ayuu wuxuu dhahay wax afka uu sheegi karin oo afka basoo marin ayuu la hadlay aniga
qoraalku akhriga waaya xataa waa iska jeestay. Waa nin ciyaal suuq ah, Cadnaan aa la dhahaa magaca horta furiya Cadnaan yaa loo bixiyaa. Qof wanaagsan Cadnaan loo bixiyaa, laakiin ninkaas nin jira ma aha, nin fiican ma ahan. Hadaada waa daa idin tusi lahaa qoraalka, hadaa idin tusi lahaa xataa wax afka u wanaagsan xataa ma aha. Wuxuu dhahay saana ku yeela, saana ku yeela, saana ku yeela, saana saaka dhan waa maqleysin daawadayaal. Wuxuu dhahay Shiinees ka jooga, Shiinees intuu ka jooga beenkiis waay, meelahaas oo weydoo jooga ninkaas iyo idin sirin. Waa ujeedaan clip yar oo waxaa ahay hadaa idin tusi clipkaas inaa aragtiin xataa ma fiicno. Daawadayaal waxaan umaleynaa inaa ninkaas fahanteen taariikhdiisa oo dhabta ah. waxaan idin rajeynayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.